fatahaadka burqatay webiga Shabeelle ayaa agta marsiisay dalyo kala duwan oo ka soo go'ay lahaa dhulbeereed aad u baaxad weyn iyo tuulooyin hoos yimaada degmada Mahaday oo kamid ah degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. Tuulooyinkaasi waxaa kamid ah Shiidla Bari, Xudur Ciise, Buurfuule iyo Kulmisirey. Shacabka ku nool deegaanadaasi oo aan haysan hoy iyo cunno ayaa ka warbixiyay saameynta fatahaadu ay ku yeesheen. waa daryeel xunnaay beeri waa naga biyoobeen gurihii waa naga biyoobeen waa iskala faasanahay gurihii meel oo seexana male ilmi wax siina male nimanka meel ka shaqeeya male waa la macaadi waxaa rabnaa inoo noo gargaar saanaag jeedin waa ilma saanaag xaq banu haynaa naag bas gurihii waa naag si darnyaay beerihii sidoo kale inoo soo batay guriyaha noo soo galeen wax sanaagana xataa male gooda xataa biyaha naga raaceen saasayna dhaxdadaad u haayaan gudoomiyaha degmada Mahaday Axmed Xuseen Afrax ayaa dhankiisa si aad u faahfaahiyay xaaladda adag ee haysata dadka ku nool tuulooyinkaasi hoos yimaada degmada Mahaday qaar kamid ah isagoo baaq u diray cid kasta oo gacan ka geysan karta dadkaas sidii loo gargaari lahaa laga soo bilaabo ilaa ugu labada dhinac oo kala rumadano meel hartay Mahaday u hartay oo dhulbeereeda oo nabad gashan sidaas sida Buurfuule hadda aan ku aragno ayay meesha ugu waqooyi meesha ugu koonfureysa sidaas ay u taala bil xaqiiq dayrkana sidii hadda waa dadkuna waa beerley oo beerqodata waa beeray ku sidii u noolahay horta Allah og laakiin dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan u sheegaynaa in meeshan xaalad bini'aadanimo ay ka dhacayso sida ugu dhaqsaha badan hadii aan laga soo gaarin safarkii hore meeshan waa in mufti uu yimaado dowlad goboleedka ka socdo oo aragiyo si uu isaguna go'aan u qaato aad maasantii Abubakar Maxamed Baadile warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar.